aragnaa qumaad waxaan u aragnaa gumaysi waxaan u aragnaa midabta kor inay tahay waxa la hadlayay waa gabar hooyaa dhashay habaryar bay qabtaa qaraabay qabtaa dumar baan nahay cid wax nagala tashatay insaan baa la yeelaa naftinkeeda in kasta oo dhacdo waa la xaliyaa waa run laakiin xalliga naftinkiisa cid naga taageerisa ma macad habarta gabarteeda soo hadda bararane waxba kama oga rag baa geed hoostiis fadhiisto soo dhamaysta waxa la dulmayana waa culug aqoon oo 20 sano gaarin jiifka nin maxkamad keenay mala qabiilkiisa lacag buu bixiyay qabiilka kalena lacag buu qaatay dhis ayagana shihiisa la sii waasii dayninkii أنا وحنا وصلنا إنك محكمة ذكية ماما إنا يقنعها وحكست الله وقنعين كره ماما ذو تشوقة كويسي العقب الله وفاني العقب بخشن الله ولا رجل جاي ذكر واقع بسنين قبل من النهاية قبل تعب يدل كوكله السلام عليكم حليم عبد القادر الله داني وحن كحوم هاي ماما ذا حق جذب كله والله دقمي وأسر كيسينا لا يا واحد كداعي ماما ذا قبل تدشي وحنا كحنا هني كيسكي odayaalka iyada sheekadooda ay diiday maanta odayaalka kalgood inay arintooda goostaan oo keeski waa dhameynay ay dhahaan oo gabarta maamada gabarta dhashay ay war ka haynin keeski jini laga dhameystay oo ninkii waa la qaado oo gaar saalo qaadan la dhahay arintaas waan ka xunaanay maamayaal hadaanaanay gabdhaha hadaanaanay maamooyin ilmo dhaleen hadaanaanay waan ka xunay arinta iyada maxay yeelay xaq bilcaanta ayaa meeshan lagu dhuminaa maalin kasta waxa la leeyahay xaalka waxa lagu dhameeyay kiwaze odayaalka kaaska lagu markay dhameeyaan wixii lacag ay bixiyaan ay kumba iska cuno maxaa yeelay qofkan waa qof waalid oo ilmo agooma haysta gabarteeda xaqeeda in loo soo bixiyo maanta maxaa laga dhigi waxa looga faanay lacag iyo wad waxaan codsanaa tan maanta waaba arkaynaa waa arin looga targalay gabarta xaqeeda in lagu dhumiyo wixii gabar xaqooda dhumay aaw inta u dambeysay maxaan codsanaa dawladda haday macnaha ay ka shaqeynaysa community-deeda xaqooda inay soo saarto haday rabto tan maanta aan leenahay oo na haysata waxaan ooga qabatay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xasan xuseen shuure waxaan ka xunahay waxyaalahan cadaalad la'aanta oo wajeer ka dhacaya hase ahaatee magaalada waa magaalo oo muslim uu degan yahay oo wadan muslim uu yahay marka waxyaalahan ay tacamal hadii oo xal laga gaari way anaga naftikayna wax baan soo gaaray gabar la soo faraxumeeyay oo caalamka idin laga ogaaday aan leeyahay saakay ninka faraxumeeyay waa la siiday keeska gaarisa lagu dhigeysanaa keeska maxkamadda wajeer lama keenin gaarisa lagu dhigeysanaa ka waran taas waxayna tusaysaa meeshan in wax lagu kala qaatay gabarta xaqeeda sida ayada lagu dhuminaya waxyaalahaas camalana ka dhacay magaalada marka waxaan leenahay dawladda waxyaalahan camalha ka fiirsata ummadda masaakiinta lagu sameynaya intaasaan soo jeedin aniga raayigay inuu dhahay taariikh 2 ayaa ninka dambiilaha la keenay wajeer police station saakila hadan taagneen meel maan u bixin ilaa maanta waa sugayni mar 5 saac ayaa la keenay meeshan stationka oo saalka la galiyay waliba sida adiga sida qaf darooga wax la yaani qalab la dejinay gaariga daba inta loo gargaaray DCI-ga meesha saalka la galiyay gudahaas ku jira indheegana ku soo arkay waxaan weydiinayaa markii la weydiilay haddan DCI waxay dhaheen ODPP DCI waxay aan keeska soo gudbin ODPP aan soo gudbin prosecution aan soo gudbin prosecution ka dhamaal shaqaalaha ma waa ninka weyn prosecution wajeer oo la dhaamistan deege ayaa inta orday ayaa faylka hadda bahay horii gadaal u wareeganaya runta dadku uma sheegahaya anaga sidii faadmaan u fahmahaya waa nin gacan la taabsiiyay oo waxa la siiyay ninkaasayto sababtoo keesas badan kootina imaanay keesa wali gaaris u gudbi la dhahay mal arkay maxaa keeskan gabadhan yariste keeska kootini gaaris loo gudbinaay maxaa chiefkan miya kana sabroon gabadha oo keeskeeda loo gudbinaay hadii la dhahay keeska gaaris loo gudbinaay ODPP xafiis inta muxuu ka haya runtii raano la sheegay maxaa nuurdiin xaaji hanoo sheego sidii kees wajeer la keen lahay maanta as ninka prosecutor-giis asii shaqaalaha intuu joogo u dhahay keeska gaaris aan gudbinaay ka jira booskay afkiisa ugu dhahay booskayga ayaa amarkeeskana soo gudbi talaan ku jirnaa ilaa amkaana talwiil lama gaar taas waxay ku tusaysaa inay cadaalad meesha ay jirin waxaan su'aal kale hadii keeska gaaris loo gudbinaay maxaa gaaris wajeer loo kood maxkamad maxaa loogu dhisay maxkamad wajeer laga dhisay maxaa maxkamad wajeer laga dhisay maxkamad wajeer laga dhisay waxa way nimbo sidii rabtay prosecution oo isticmaalayaan maxay xalay inaad yaani shaqo qabadka bulshada loo soo dhaweey sidii dhibnaan arka taas maxaa u maleynaa dulmi gabadh lagu sababtoo mid koobaad gabadha iyo hooyada waa dad faqiireen ma qawadaan tabarti ma hayaan ilaa Nairobi gaaris ay ku aadaan mid labaad noloshada ay qatar lagina dhaxdan baa laga afduubi karaa soo waxaan reenahay hadii gaaniga keeskan lagu mista ndeege shaqaha